بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر هذا جانب كأقون أوفيشال. waxaan xalinaynaa imtixaankii 2024 fasalka 8aad waxaan ku bilaabaynaa maadada xisaabta ayaan ku bilaabaynaa halkan la socod wanaagsan sida ku muuqata halkan waxa ku qoran magaca afaran halka waxa ku qoraysaa magacaaga afaran ayaa halka ku qoraysaa sidoo kale roll numberka halkan ayaa ku qoraysaa dugsiga iyo xarunta aad ku galaysid dugsiga aad dhigatid iyo xarunta aad ku galaysid halkaas ayaa ku qoraysaa waxaan toos u galaynaa marka ka shaqeynta inta iska aqri shuruudaha ama waxyaabo u muhiimsan ee halka ku qoran si fiican isaga aqri okay waxaan ku hormaraynaa marka qaybtani koowaad goobo gili jawaabta saxda ah goobo gili jawaabta saxda ah su'aasha koowaad fiiri marka habka astaan qeexida ku tiirsanayaasha ururka waxaa lagu qeexaa iyada oo la isticmaalayo ba tixid ta doorsoome xa ja ma doorsoome xa jibaar jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ta oo ah doorsoome ayaa goobo gelinaysaa su'aasha labaad ururka ku jira ururka guud oo aan ku jirin urur la tilmaamayo markaas waa ba urur maran ta urur duleed ja urur gaar ah xa urur duleed jawaabta saxda ah waa xarafka xa oo ah urur duleed su'aasha saddexaad haddii aan fiirino sumada loo qaato urur maran waa waxay noqonaysaa jawaabta aan ka dooranayno waa ba oo urur maran sumada ayaa loo qaataa su'aasha afraad haddii aan fiirino haddii ga uu la mid yahay dhufsanayaasha 3 ee ka yar 15 haddaba ku tiirsanayaasha ururka ga waa ba intaas haysanaa ta sidoo kale ja iyo xa haddaba jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ja 3 6 9 12 15 kuma dareys ka yara lagu dhahay su'aasha ku xigta ee shanaad haddii aan fiirino adigoo fiirinayo jaantuska midig ku sawiran urur duleedka ba waa marka waxaa haysnaa ururka ga ururka guud waaye ururka la tilmaamayna waa ba urur duleedka laga rabaa oo ba ah soo marka waxay noqonaysaa ba iyo ta iyo ja iyo xa ah haysnaa urur duleedka ba marka wuxuu noqonaa 4 5 7 ayuu noqonaa oo xarafka xa ayaan ka dooranaynaa su'aasha lixaad haddii aan fiirino qoraalka gaaban ee ah a ku jibaaranna xarafkana waxaa loo yaqaan muujiye jibaar hooseeye sal jawaabta saxda ah waa xarafka ba oo ah muujiye su'aasha ku xigta lixaad su'aasha toddobaad haddii aan fiirino number 7 ayaan fiirinaynaa su'aasha toddobaad maxaa haysanaa tirada 49 marka loo tibaaxo ama loo qoro jibaar ahaan waxa ay noqonaysaa 2 ku jibaaran 5 25 7 ku jibaaran 2 2.5 jawaabta saxda ah waa xarafka ja oo ah 7 ku jibaaran 2 su'aasha ku xigta sideedaad marka loo tibaaxo jibaaradan 5 ku jibaaran 2 lagu dhuftay 2 ku jibaaran 2 tiro ahaan jawaabtu waa 75 100 50 20 jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa 100 ayaan ka dooranayna xarafka ta ah su'aasha sagaalaad haddii aan fiirino qoraalka gaaban ee 3 ku jibaaran 5 tirada 3 waxaa loo yaqaanaa jibaar sal muujiye sal jawaabta saxda ah waa sal ayay noqonaysaa su'aasha 10aad haddii aan fiirino haddii ba ta iyo ja ay yihiin tirooyin idil ay ba lagu daray ta oo lagu daray ja waxay la mid tahay ba lagu daray bilfur ta lagu daray ja xeerkan waxaa loo yaqaanaa ba kala dhiga ta hormagalka ja xiriirinta xa kala hormarinta haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta oo ah hormagal qaybta koowaad